وحين حسن محمود صاحب بضي ودوبيها قبل كبنادي أنا دوقة مقالة المرسو ودوبي بحيك هذا الكسرة صاحب عبد الرحمن شكور وآد ومساعد بني صاحب كان وحباب كتير لما أنت كان المسؤولين تعال قفل بماشي ومدعو وقفل اليوم إلى أن نقول سلام وسلامة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن آدم فرح سنة مقدشو وصف على السوس والنقضي وهي ويلا حصوصتي وحفلتها بين الذي لا يقيم جلبي واللغات كانت دول لهي وقفنا للريحين ووحا كلية جمعيتها الشباب يعلدوا ذا كلية aad baan ugu faraxsanahay waana ka mahadcelinayaa intii aan joognay inay ka bedelan tahay marar badan oo jiray taa marka laga soo tago waxaa xaqiiqa ah Soomaalidu sanadihii ugu dambeeyay isbedelada muuqanayay ee siyaasadeed waxay keeneen horumar iyo deganaansho in la garto oo maanta beelweynta hawiye oo uga mahadcelinaya xafladan aad u maamuuska fiican iyo qadadan inay u gartaan in la ilaaliyo xasiloonida siyaasadeed iyo isbeddelka marwalba sida uu yahay iyo dowladnimada soomaalida markay isxanaantida waxaa loola jiray dowladnimada hawiya ugu daran oo waxoogaa dagaaladii sugaya markay dhaceen inta badan xantu mootay soomaalidu isxaanan jirteen hawiyuhu waxoogaa xagga dowladnimada waa lagaga fiican yaa lagu xaman jiray waxaa hadda muuqata cidda dowladnimada ugu dhow ee raadinaysa ee wal dowladnimo war Soomaali war sukaankeena war shir nabadeed war halaga shaqeeyo inay hawiyo noqdaan taan oo idinka mahadcelinaya waliba aan kafta war ku sii darsado loo sabareen baan hada loo sabareen mana dhisna dadna ma qaadi karto seentolo inta ku wadatay karaa waxaan leeyahay habeenkii inta shabkooda khayr bay ku bedeshay Allah baa waa mid keentay in magacii loo sameeyo la bedelo oo sameeyo loo bedelo magaca rabaa inaan beelweynta halkaan fadhiyo uga mahadceliyo rabitaanka dowladnimo Soomaalinimo sida ay u rabaan in siyaasadda waddankaani degto in la heshiiyo in wax la wada lahaado aad baan idinka mahadcelinaya waxaan rabaa inaan idiin qeexo shirkii aanu isugu nimid ee ka soo bilowday dhuusamareeb oo mahaddiisa ilaahay ka sokow dadkii martigeliya ay lahaayeen inuu ku dhammaaday dareen fiican oo qof waliba qofka kale uu xaq dhowlayay maanaan iskhasbaynin jujuub muuna jirin weliba aan uga mahadcelinay madaxweynaha jamhuuriyaddu inuu xataa iyo technical xataa aanu marayo waxaan rabaa sida ugu dhaqsaha badan ee ugu dhow ee dadku xilliga ay doorasho ku dhici karta in loo qabto aanan arka buuhi xasiloonida waddanku inay taagan jirto warka habeenkii markaa waxaa ka asarsan ka maalintii midka maalintii laysu sheego waynu ognahay xanta taale iyo habeenkii wixii laysu sheegi jiray maanta waa ilaahay maadi markii shirkaa la ii sheegay waxaa niyo anaa la yidhaahdaa war ra-iisul wasaare la magacaabo qola aan ra-iisul wasaare qaadan jirinna waa la siiyey ama yidhaha waxoogaa jag ha la siiyo laakiin waa la isla fahmo waxay noqotay saaxiibadii baa hore u sheegeen hadduu shir balowsi joogana wax kaluu sii sheegi lahaa marka arrintaasna aad bay u fiicnayno waxaan isla qaadanay aragtidii kulligeed waxay noqotay waddadaa in la wada qaado waan idinka mahadcelinaynaa xafladdan iyo munaasabaddan waxaan rajaynayaa midda kalena inay ka sii weynaan doonto waxaan rajaynayaa niyad ficli inaan doorasho ku aadi doono
waxaan rajaynayaa ka xildhibaanka raadinaya iyo ka midka hadda ku fadhiya iyo ka madaxweynaha raadinaya iyo ka hadda ku fadhiya kulli inagoo gacmaha haysaysana inaan u dareemi doono beeshuna ay sidaas guusheeda ku gaari doonto waxaa aad loo soo celceliyaan rabaa si aan ku talagalahayn inaan uga hadlo magaalada muqdisho waa caasimaddii soomaaliya warka hawiyo aada u dhegaysta caasimaddana hawiya dadka kama xigo magaaladan ku soo koray wax ku soo bartay ragga qaarkiina way iga sii dhow yihiinba caasimadda muqdisho waa inay yeelato maqaam sharciya oo ay leedahay oy matalaad ku leedahay caasimadda muqdisho uma baahna guddoomiye loo soo magacaabo uma baahna nin kolba la bedelo waxay u baahan tahay council iyo maamul iyo dhaqaale ay dadka wax u qabato suwijadii loo sameeyo biyo macaan ay hesho koronto bilaasha ay hesho dhaqaale dib loogu celiyo borosayskaasi xilligii horena waa laga hadlay waxaan rabnaa maanta haddii baarlamaan go-aanka gaari waayo waxyaalaha aan rabna raadka in laga tago waxaa ka mid a doorashada soo socota inaan lagu murmin maqaamka caasimadda inaan lagu murmin matalaadeeda inaan lagu murmin oo la qeexo wax walba wax cadoon isku ognahay oo nin walba faylka gacanta u haysta inaan ka tagnaan rabna haddii lahayna hawsha aan sidaa u wada qaadano yaan la isku dhaga hadlin anaa ugu jecel caasimaddu inay maqaam iyo matalaad intaba hesho qof iga xigaana maanta ma jiro aad baad u mahadsantihiin waxaan idinka sugaynaa inaan samayno fulinta waxyaalaha aan heshiiska ku gaadhnay nabadgelyada aan ka wada shaqayno ay soo baxda muurkii doorashadu dadku inuu doorasho dalku inuu dareeray intaa la dareemo waad mahadsantihiin saaxiibadayna aad baan idinku mahad celinaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu